Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aniga magacayga waxaa la dhahaa Cayshe. Waxaan ka shaqeeyaa diyaaradda gudaheeda. Dadka ayaa xogeeya. Diyaaradda waxaa ku arkay oday oo gabadhiisa la socota. Gabadha dharkeeda aad ay ugu wasakh badnaayeen oo waxaa garawaa waxay u wasakh badnaayeen. Ninkana wuxuu ku qabay suud ayuu qabay. Nin wuxuu ka lacag leh. Aniga markii dambe waa fikiray in waxa sir gabadha maxaa ku dhacay. Markii dambe odayga ayaa u imaado waxaan ku yiraahday mudana wax yar iga raali noqo. Gabadha dharka ma ka soo bedeli kartaa ayuu wixii qabtaa dhar wasakh badan. Odayga ayaa igu dhahay sharab ay taa shaqadaada maaha. Dan iyo camal ayaa ku hay oo iga balooxo. Maxaa kaaga hadii dhar gabadha qabto dhar wasakh ah. Gabadha ayaa si naxariis badan ii soo fiirisay. Anigana waan la yaabay gabadha si naxariis ii soo fiirisay. Markii dambe waxaan ku yiraahday waa maasantahay mudane waa ka soo tagay. Markii dambe waxay maad meesha ku nisanay. Waxaan is iraahday gabadha yiriista ama ninka dilaa. Markii dambe waxaan iraahday qalin iyo buug soo qaado oo gabadha u dhig suuliga. Intaas ii kaaga soo jawaabi kartaa sida uga badbaadina ninkan xun. Markii dambe intaas ayaa fikradeed ku fikiray. Waxaas dhahaa waraaqada way arkaysaa. oo ayadana fariin ay ku qorsaa. Markii dambe saaxiibada ay imaaday. Fikirkayga ayaa u sheegtay iyo wixii dhacay diyaaradda ka dhex jiray. Markaas igu tiraay waa fikir fiican. Aniga ninka ayaa shii mashquulinaya. Adigana gabadha soo kaxay. Intaas ayaa ku fikirnay. oo waraaqadii ayaa suuliga soo dhignay. Saaxiibadayna way tagtay oo ninkii ayaa u sii tagtay. Ninkii ayaa mashquulisay. Anigana waxaan gabadha yiriista aad ayaa waxa fiirinay. Waxaan ku ilaha soo bax kaala suuliga aad. Gabadhii ayaa waxay igu tiraahday haye. Markii dambe gabadhii ay istaagtay oo waxay u tagtay ninkii. Wixii ku tiraahday suuliga ayaa aadaya. Anigana waxaan ku fikiray in waraaqada arkiso. Markii dambe ninkii ayaa gabadha soo jiiday oo wuxuu geeyay suuliga. Gabadhii markii waraaqada aragtay way naxday oo wuxuu moodo wax kale. Ninkiina wuxuu ku sugayay suuliga banaankiisa. Ayuu gabadha ayuu dusha ka ilaalinayay musareen inuu cid aragto. Arintaas ayaa la yaabay oo gabadha wuxuu u ilaalinaya ayaa is iraahday. Mid dambe baara loo soo diray gabadha yiriista inuu ilaaliyo miyaa. Markii dambe waxaan ku fikiray in ninkan la xiro. Gabadha waxa rajaynay waraaqada waxa uu qoray inay aragto. Intaas ayaa rajaynay. Markii dambe gabadha suuliga ayaa ka soo baxday. Eedo madaxa haysata. Ninkii ayaa markii dambe soo kaxeeyay oo wuxuu geeyay meeshii. Aniga qadii ayaa soo qaaday. Waan fiiriyay waxa ku qorneed falan iyo caabi. Waan naxay markaan intaas arkay. oo diyaaradana way degrabtay. Mar dhow ayay degrabtay. Markii dambe aniga waan soo cararay oo waxa u soo cararay dhanka kabtanka. Kabtankii waraaqada ayaan tusay. Markii dambe kabtankii wuxuu wacay booliiska wuxuu dhahay nin ayaa xagas joogay gabar yiriisa wata. Markii dambe booliis badan ayaa imaaday oo markii dambe kabtanka warkiisa ayay maqlay. Markii dambe diyaaradda ay soo degtay. Ninkii saastii loo baaray banaanka ayaa lagu sugay waa la qabtay. oo hadda gabadhii way ka badbaaday. Aniga waxa la isiiyay awaar marin. Ninkiina waxa loo xukumay 25 sano oo xarig ah. maadaama farka uu geesar rabay. Gabadhan saacadan uu dili rabay. Intuu dilo uu yiro inuu kaliyaheeda gato. Saacadan hadii gabadhan ay caawin lahayn maxaa ku dhici lahaa asxaabay. Laakiin committee inuu soo qora. waa maasantiin subscribe like.